بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، walaalayaal waxaan kusoo guda jirnay bishii barakeysaneed ee Ramadaan. waxyaabaha wanaagsan bishan inaan sameeyno waxa kamid ah taraawiixda iyo waliba inaan markaasi qiyaamul leylka aan la imaano. Nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam man qaama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. qofkii markaasi istaago bisha Ramadaan iimaan asagoo rumaysan oo waliba ihtisaabsanayo waa loo dhaafay dambigiisii hore. marka waxa wanaagsan markaasi inaan dukano taraawiixda, salaada taraawiixda ah. dadka inta badan waxa lagu maaragtay madadaaliya tartamo markaasi xaafadaha loo qabanayo oo xaafad hebel iyo xaafad hebel tartamayo leeyahay iyo musalsalaad markaasi Ramadaani lagu sheego oo markaasi leeyahay musalsalaadka maaragtay Ramadaanka. marka waxyaabahaas inaan ka soo jeesano oo aan salaadii taraawiixda ah ka faa'iideysano si markaasi ajirkaas faraha badan uu san noo dhaafin. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.